odayaal anigoo ku hadlaya afka ganacsatada degmada Buurtile dee ganacsatadu markii horena wadada waxay kaga qayb qaateen waa la ogaa iyo qaabkii waxa weeye ay wadeen ay guddiga horumarinta ula shaqeynayeen haddana insha Allah tacaala waxaan leeyahay maadaama tan ay tahay isku tashi wixii kaloo ilaahna siiya meesha ahaatee waxay noqon doontaa insha Allah tacaala inaan sidii hore si ka fiican aynu uga qayb qaadan doono haddii alla idmo annaka xaggan afka ganacsatada taas marka ka soo tago ka amal ahaana kulli wixii aan nala ku yaqaanay oo aan qaban jirnay insha Allah tacaala sidii wadada aan uga qayb qaadanay insha Allah tacaala anaga guddiga horumarinta waa iskaraynaa waa ka sii laba jibaarayna haddii insha Allah tacaala wixii taakulayna iyo wixii tabara haddii alla idmo waxba la harimayno shakhsi ahaan uga qayb qaadanaynaa bangi ahaan uga qayb qaadanaynaa dhammaan waa ka qayb qaadanaa haddii insha Allah tacaala qof walbana adduunkan wuxuu ku sugnaanayaa waa maalmo waxa anfacaya oo rasmiga ahna waa wuxuu hormarsado ma ahan waxa uu labisto iyo waxa uu cuno maahan waxa uu hormarsada u baxaya ama u noqonaya kayd marka qof kasto waxaan loogu yeero waxay la tahay isaga loo daneeyay maxaa yeelay isaga kayd u yihiin marka nuxurkan ka raacaya insha Allah tacaala waa dhiiri gelinaya barnaamijkan qof ahaan waa u qareemi doonaa insha Allah tacaala cid walba waa gaarsiin doonaa anigana qof ahaan waxaan uga qayb qaadanayaa lacag $1 insha Allah tacaala anigu horta markii hore waa ka qayb qaatay oo saan uga qayb qaatay baan idin sheegaya halkan markii aan barnaamijka biyaha markii aan bilaabaynay yaa campaignkii mataqaanaa dhiirigelinta iyo wacyigelinta waxaa nagala qayb qaatay nin oday oo hadda aan meeshaan iga muuqano ganacsada ah nin fiican oo la yiraahdo Cali Jaxeer marka kelmaddu wuxuu soo saaray hal ku dhagoo la yiraahdo Buurtile labada gacmood bay ku quweysan doontaa baalidan baan sheekaysano wuxuu igu yiri kelmadeedu dhaxal galbay ayda waxay ahayd share inaad igu siisaan oo shirkadda share la igu daro waa istaahishay baan sababtoo ah kelmaddaas aad bay maaragtay runtii hadalhaynteedu u badnayd marka anugu horta magacii la oran jiray GBB corridor waxaan malaynayaa qofkii ugu horeeyay oo soo fakiray inaan ahay saakal ima sheegin isagana waa runtii qayb yar oo ii ahaa qaybta kalena waxaan maanta halkan ka sheegayaa maadaama oday xasan faarax ciid uu yiri waa iskuma afjarna baasho $1 baan aniguna halkan maanta kaga deeqayaa oo wadada kaga qayb qaadanaya halkan hadal uma soo istaagin runtii laakiin maadaama la ii yeeray haddaan diido waxaan ka baqay in la ii yiraahdo lacagtu ka cararayaan anigu contribution-kayga waa bixinaya laakiin halkan ka sheegi mayo guddigaana ku aadin doonaa insha Allah tacaala midda kalena haddee waxay la tahay ugaaska dhiirigelin oo kugu filan marka dadku kor iyo hoosba labadaba waxay u bixin karaan ha u bixiyaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan tala ahaan ku darsado fikradaha noocaan oo kala ah dadka aasaasa oo adduunku wax walba waxay leeyihiin wax lagu garto oo dad founders ah dadka mashruucan oo kale soo fakara oo si uu u hirgalo waa in la qoro oo la qiimeeyo oo meel lagu qoro oo record ay leeyihiin sida kuwa ka dambeeyana bari ay ugu dhiiradaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhinaca ka qayb qaadashada contribution-ka halkan anigu aad iyo aad baan uga qayb qaadan doonaa insha Allah waxaan isku dayayaa doorkayga dhinaca anigu nafsad ahaantayda iyo midda bulshada aan la xiriiri karaba inaan la xiriiro hadda balda inoo bilaabay in sadaqada la siraysto insha Allah waan siraysanayaa inta dambe aad baan mahadsantihiin anigu faceka ugu horeeya waxaan ku darayaa sadaqadu waa sax xadiis weeye in la siraysto waxa digtaadu bixisay inaysan bidixdu ogaan laakiin haddana meelahan kale marka la joogo sadaqada in kor loo qaado baa ka sii maakadsan marka anigu faceka hore $100 aan waalidkii ula baxo iyada iyo abahay baan ku darayaa faceka soo socon insha Allah hadii ay waa ka qayb qaadanay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum anigu horena waa uga qayb qaatay Buurtile horumarkeeda wixii ka socday haddana waa ka qayb qaadanayaa weliba waxaan kaloo aan aaminsanahay inaan ka qayb qaadan karo inaan lacagta u aruurino gaalkaac iyo horumarkeedii saasaan wax ugu aruurinaa tanna sidoo kale aad baanan waxaan
dadka u kala aqaana weliba deegaanadeena ka soo jeeda waxaan idinka hadduu ilaahay idinkala qayb qaadanaya oo ama guruubyaha loo sameeyo ama meel kale taan bixiyo ma ahan inaan mid aada u tiro badan idinla aruuriyo hadduu alla idmo guddoomiyaha guddigana arrintaas waan kala qayb qaadan doonaa golaha wasiirada agaasimayaasha xildhibaanada sida lacagta looga jajafo waan aqaanaayo anaa ka soo jajafaya hadduu alla idmo xildhibaan cawil iyo fu-aadi ragga ugu horeeyaan agaasimayaasha dowladda wixii dhinaceena ka soo jeeda waa ka keenaynaa wasiirada ciddii ka soo jeeda dhinaceennana waa ka keenaynaa taas waa taas ma waddadii sirtaan raacaa marka mise waddadii odayaasha kale maya musharaxnimada keliya maahan musharaxnimada ma rabo maanta intaan ku deeqayo in laygu siiye haddaana horey reerka wax ugu darsan yaa waxba laysiin haddii horey laygu qarsayana wax ku darsadayna yaan cid layla tartansiin anigu waxaan ku deeqayaa oo siduu cabdulaahi waxaa la yihahdaa maxamed gooja cadde sheegay oo kale aabbahay allahu naxariista aan ula baxaya ilaahay inuu jannadii ku geeyo cadaabtana kaga xoreeyo fiqiguna markuu noo soo xerayo uu noogu duceeyo aan rajaynayaa $2,000 hadduu alla idmo annagu marka gol ahaan haddii alla idmo waxaan bixinaynaa $10,000 baan ugu deeqaynaa waddada haddii alla idmo lacagtaasaan kaga qayb qaadanaynaa idinkana waxaan idinka rajaynayaa ilaahay inuu idiin fududeeyo hawsha iyo dadaalka aa wadaana idinaan ka harin waxaanan rajaynaynaa insha allah mar walbana waxaan jecelnaha inaan ka qayb qaadanno arrinta kale dadka hadda halkan loogu yeero oo kaga qayb qaata tabarucaadka ha naga cararinin oo mar kastoo laynii yeero halisoranin waxbaa layni weydiinayaa bal marmarka qaarkood intaad dadka u yeertaan abaal mariyo waxaad tirahdaan maanta waxaynu ku yeeray keliya inaan iniin mahadnaqno aad iyo aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum raxmatullah taageerada ugaasku bilaabay maantay waxaan leeyahay waxaan uga qayb qaadan doonaa haddii ilaahay idmo wejiga koowaad dabcan oo aan kala hadli doono sidaan u bixinayaan haddii ilaahay idmo lacag 5,000 baan rajeynayaa insha allah inaan bixiyo wejiyada dambe oo isteejyada dambe oo waddadan sii socodkeedana haddii ilaahay idmo waan ka qayb qaadan doonaa si dhow baan ula shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo aad baan u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa hawshaan dhaqanka waa la wareeriyey oo siyaasad baa la geliyey oo maaragtay meel adag baa lagu sii wadaa laakiin shaqada asalka oo dhaqanku lahaayeen waxay inay deegaanada ka shaqeeyaan nabadda ka shaqeeyaan dadka isu keenaan horumarka ka shaqeeyaan inuu arrintaa isagu bilaabay oo dhaqankii puntland oo dhan ugu hormaray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay ka ajar siiyo waxaan rabaa inaan 2 qodob kaliya kusoo koobo horta waa la shaqaynayaa guddiga waana ka qayb qaadanayaa haddana insha allahu $2,000 baan ku darayaa lacagta haddii ilaahay yidhaahdo waxaan socodsanayaa war niman halkaas abtiyaashayaa jira ilaa qorilay waddada hala gaadhsiiyo mar hadday adeerka iyo seemade anugu seemadaan ku dhashay marka waddada buubi tagtay seemada waa tagtay laakiin waxaan rabaa in guddigaan u sheego war nimankaas ehelna waa nahay qaraabana waa nahay waddadaas meesha la qorilay talada ha lagu darsado dowladdu way ka qayb qaadan doontaa haddii alla idmo ama si cad ha uga qayb qaadato madaxweynuhu ha ballan qaado ama si dadban ha uga qayb qaadato waxaad ogtihiin waddada gaalkacyo iyo garowe isku xirtaa in dhib weyn iyadana ay ka jirto wasiirkaa ka hadli doonaan u malaynayaa oo aan u dayn doonaa hadalkeeda iyadana waqtigeedu waa dhow yahay sida hadda cawilu sheegaya waa run anigu 40 daqiiqaan u socday garowe marna gaalkacyaan 45 daqiiqo u socday xalayna 4 saac baan soo socday waxa isu dhigmi kara iyo waqti la qaadan kara midnana ma ahan dhibaato badan baana lagala kulmay waxaan rajaynayaa haddii shacabku ay ku aadaan inay waddooyinka leexsan iyo dadka dhibaataysan ay gaarsiiyaan dowladduna ay taageerto dowladduna inay waajibaadkeeda gudan doontaan rajaynayaa insha allahu ballanqaadkii hore oo la sameeyey in loo qareemana meeshiisii ayuu noo taagnaanayaa reer buurtille waad astaan baad u noqon doontaan puntland iyo soomaaliyaba waxaan rajaynayaa sidii hore aan u sheegay riye igama ahayn in laga dhabeeyo cismaano agaasimihii guud oo duulistaan wayna la joogaa cismaano waxaan kaa rabnaa garoonkii buurtille ay yeelan lahayd haddii aan la idmo maalin maalmaha ka mid ah inaan dhagax dhigno murashaxna waa tahay oo hadda xildhibaan baa u tartami doontaay haddee ducada iyaduna waa kacaysa marka dhulkuna waa ballaaran yahay baahiduna waa badan tahay wax ka qabadka iyo wax qabadkuna inuu yaraado baa laga yaabaa dadku siday u arkaan laakiin ballaarka dhulka iyo baahida jirta darteed
dowladdu waxaan filayaa inaan dadaal u harsanayn ay khasabna tahay bulsho wax qabsanaysa inay taageerto goldogob hadda waxaa lagu taageeray tuurdibi 8 kilomitir oo bulshadu saan oo kale u dhisanayso qalabkii dowladda awal lagaga shaqayn jiray meesha la yiraahdo wadaagsin qalabkii bay hadda ku shaqaynayaan oo shidaalka ku shubtaan mustaqbalka haddii halkaas soo dhammaatona inkastoo bursaalax idinka horreyso waxaan rajaynayaa in qaybtii ka noqon doono oo ay fududayn doonto kharashka marka meel kasta dowladdu waa taagan tahay bulshadeeda garabkay taagan tahay waxna waa la qabanaysaa waxaan rajaynayaa marka inaynu isku xirnaano hawshaasuna ay sida inoogu fusho salaada casarna waa dhowdahay fiqigiina waa iga dameeyaa waxaan rabaa inaan maadaama halkan dowladdu qorshaheeda dib baan u dhiganayaa madaxweynaha in laguna noqdo oo dowlad xukuumadda lagula noqdo inkastoo baarlamaanku iyagu duuduubanay saaxiibaday wax qaateen xildhibaan cawil oo hal mar isku duuduubtay annaga waxaan islahayn tii ugaaskaa idin wada qaadaysa laakiin waxaan rabaa inaan si beersonaaliya aniga shaksiyan waxaan rabaa inaan $1 aan ku deeqo haddii allah awoodda la igolaado intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qareemidda iyo shaqadu waa wax mas-uuliyada waajib ah oo aniga si gaara ii saaran aad baan wansantay waddadan marka waxaa weeye iyadana waa waddo kale oo deegaanku u baahnaa markii u horreysayna ay ka soo dhalatay deegaan oon laga soo sheegay iyo waddaxumo badan oo aanu tagnay oo degmada meesha la yidhaahdo dogob oo aada looga soo qayliyey baan ugu dhalisay markii hore fikraddaas raggii tegadoo kale meeshaas biyana ma haysan waddana ma haysan halkaa waxaa laga soo bilaabay in ceelo laga qodo waddo loo furo dhinaca degmada laga xukumo waddana lagu soo furay dhinaca deegaankan iyo buurtinle kadibna buurtinle markaa nimidna ay sii dhalatay in la gaarsiiyo ilaa Garaacad oo isaas ugu xirmo waddadaas marka baahi baa loo qabaa waddooyinka iyo horumarka wixii keenaya oo dhanna way iskaabayaan waxba isma yeelayaan marka sidaa weeye tii horena muhiim bay noo tahay waana taageersannahay middaana baahi baa loo qabaa iyadana insha allahu tacaala waa ku liibaani doona aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatay inta kalena oo codkeeya u gaarayana waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan sadaqatul jaariye weeye dal iyo dibadba aynu garab istaagno dhaqaalaheenna aynu ku bixinno aynuna garab istaagno waxaan ilaahay ka baryaynaa intii wax ku bixisay ilaahay inuu muraadkoodii sahalo xoolahoodana unu barakeeyo niyaddoodana inuu wanaajiyo kuwii waalidka oo magacaabay oo maaragtay u sadaqeeyey iyo kuwii maaragtay dana kale dhammaantoodba ilaahay maalkooda inuu barakeeyo aan ilaahay weydiinaynaa maalkooda allaha barakeeyo maskaxdoodana allaha barakeeyo qof walba oo khayrka uu u baxsaday waalid hadday tahay iyo haddii kaleba allah u fududeeyo waraadadiina khayra allah idin fududeeyo wixii wax ku baxshay sir iyo wixii iclaan ku baxshay iyo kuwa ku bixin doonaba allaha barakeeyo maalkooda allaha barakeeyo awlaaddooda allaha barakeeyo maskaxdooda allaha barakeeyo cilmigoodana allaha barakeeyo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo oo noo fududeeyo oo noo hirgeliya ilahay weydiisanaynaa sala allahu calaa sayidina maxamed